barnaamijka caawa aynu ku bilownay maalintii labaad waxaa dalka Djibouti ka socda mudaharaadyo ku baahay guud ahaan gobolada dalka. Gobolka Cali Sabiix waxaa maanta salaada Jimcaha kadib ka dhacday dibadbaxyo lagaga soo horjeedo askari gadooday oo dhawaan soo duubay muuqaal laga naxo uga sheekeynaya sida loola dhaqmay inta uu xabsiga ku jiray. Mudaharaadayaal careysan ayaa wadooyinka qaaday iyagoo qaar ay taageero ku gubeen jidadka iyagoo dalbanaya in la sii daayo Fuad Yusuf Ali oo hore u ahaa duuliye ka tirsan ciidamada cirka dalka Djibouti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Somali Action wa ina salaamina meel walba joogtaan asxaabteyda meel walba joogtaan waxaan soo marinayaa hawada salaan qiimo iyo qaaya badan. maanta barnaamijkeena wuxuu ku aadan yahay ninkii dulmanaa Djibouti lagu dulmiyay maartay looga dhigay suuliga xabsi looga dhigay korkiisana aad aragteen wax ka soo dadaateen kulayl iyo nadaafad darri darteed oo korkiisa wax uga soo daateen. ninkaas wuxuu ahaa nin reer Djibouti uu ahaa Djibouti buu ku dhashay Djibouti buu ku barbaaray Djibouti buu wax ku bartay dalkiisii hooyo ayuu wax ku bartay. ninka waa la dulmiyay dulum aad iyo aad u weyn baa loo geystay xoogiisii baa inta maartay ya maartay xoogiisii baa maartay ninka horta waa pilot ma sha Allah ciidamada pilot ka mid yahay waa duuliye xoogiisii iyo mushaarkiisii baa loo diiday waxaana loogu daray xabsi. xaaskiisana waxay leedahay anigu waa ka sabray waxaan qaatay maracad asay baan saartay bay leedahay. waa la og yahay Djibouti ninkii ka hor imaada Ismaan Umar Geelle ninkii ka hor imaada inuu maartay la shiidayo hadda waa loo dadaalay xabsi baa la geeyay waa la shiidaa dad qaar intii la shiidaa badal lagu daraa asaga waa laga samray markii laga samro liiri inuu dhinta loo maleynay waa ka soo hadlay xabsiga. waa ilaahay mahadiis ninka dulum weyn baa loo geystay oo aad iyo aad u weyn. dadka reer Djibouti waxaan leeyahay war ninkaas xaqiisa ha loo doono xaqiisa ha loo dhiciyo ha laga dhiidiyo. Ismaaciil Umar Geelle adigu Ismaaciil Umar Geelow aakhara miyaada ka cabsanaynin ilaahay subhanahu wa ta'ala miyaada ka cabsanaynin inaad dhimanaysid miyaada u maleynaynin war dadka aad dulminaysa dulunka xaq darrida ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq darrida ma jeclo ninka aad dulminayso xoriyadiisa dib ugu soo celi. halkan waxaan ka cambaareynayaa Ismaaciil Umar Geelle ayaan ka cambaareynayaa war dadkii ku shaqeynayay hadaad cuntay maxaa adiga berita markaa ku faa'iideysaa. waxaa la yiri yaanyur marka ilma dhasho ilmaheeda dib u cuntaa baa la yiri war dadkii hadaad dib u cuntay xageed rabtaa beri inaad aado sideed rabtaa inaad wadankaada ku hormaro sideed rabtaa marta carruurtaada inay horumar ku gaaraan. war waxaan ku leeyahay arrintaas ka laabo ninka hawsha qaran hayay intaasoo sana ku shaqeynayay ciidanka pilotka duuliyaha dib xoriyadiisa ugu soo celi carruurtiisa ha ku farxaan oo dib ugu soo celi carruurtiisa ha arko xaaskiisa ha ku farxdo dib ugu soo celi xoriyadiisa mushaarkiisana sii. war waxaa la yiri qofka bini aadanka waxaa la yiri dhididkiisoon qalalin hadduu hawl kuu qabto dhididkiisoon qalalin waa inaad siiso oo arrintiisa aad u dhammaysaa la yiri intuu dhididkiisa qalalin. war meeqaad cuntay mushaarkiisa war meeqaa adig kuu shaqaynaysa oo bilaa mushaar isxaadanayso Djibouti waa la yaqaanaa imisa xafiiska iska xaadanayso mushaar ilaa qaato ninka xoolihiisana aad u diidan tahay oo xoogiisa shaqaysanayay. war qofka xoogiisa shaqaysanayo xoolihiisa laguma xadgudbaday oryaa xoolihiisa laguma xadgudbo. waxaan ku leeyahay Ismaaciil Umar Geelle arrintaas ka laabo ilmahaas ninkaana ilmihiisa iyo dadkiisa iyo awlaadiisa iyo waalidiintiisa dib ugu soo celi xoriyadiisa. waa ilaahay mahadi hadduu nool yahay aan la dirinba haddii aan la cuninba waa mahad ilaahay. marka waxaan leeyahay ninka xoriyad buu u baahan yahay ummadda reer Djibouti war kaca war bari ka hadsaa la yeero bari dambe ku kala adiga la yeelayaa. Djibouti isku xiraada oo xoriyada qofka bini aadanka ha loo doono xoriyadu waa wax wanaagsan qof bini aadan xoriyadiisa in laga qabto ma wanaagsano. war ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ciqaab leh qof bini aadan inuu wax ciqaabo waa dambi dambiga ha laga laabto. waxaan ku leeyahay Ismaaciil Umar Geelle waxaad cuntay waabad cuntay laakiinse waxaan hadda ku leeyahay ninka miskiinka dhibaataysan maaragtay korkiisa aragtay suuliga intaad ku xirtay ay korkiisa cawayaanka intay cunaan waxaad aragtay ka soo daatay. war ciqaabin bini aadanka lama ciqaabo ilaahay baa ciqaabta iska leh adiga ibni aadan baa tahay dadka xoriyadiisa u soo celi ninkaas
waxaan ku leeyahay ninka xorriyadiisa ha loo soo celiyo ninkaas waxaa weeye waa nin dulman waa nin aad iyo aad loo dulmiyey waa nin aad iyo aad loo dhibaateeyey waa nin xooggiisa iyo xoolihiisaba lagu dulmiyey iyo naftiisaba la dulmiyey waxaa weeye dulamkana wax wanaagsan ma aha alla agtiisa dulamka waa laga necab yahay qof inuu dulmiyo wax wanaagsan ma ahan war ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax uumay waxna dilo waxna nooleeyaaban qof dulminine adigoo bini aadan asee qof ku dulminaysaa inaad qof dulmiso waa khalad sideedaba waxaan ku leeyahay Ismaaciil Cumar Geelow arrintaa fariintaa dadka wargaarsiiya bal arrintaa hadduu wax ka qaadanayo ha la gaarsiiyo war waxaan ku leeyahay soo siidaa ninkaas u soo siidaa xorriyadiisa u soo siidaa caruurtiisa maartay inuu la farxo xaaskiisa uu la farxo waalidkiisa uu la farxo waxaan ku leeyahay adigaba maada jeclaan lahayn in sida lagu gale qofka bini aadanka asaas looma galo qof qaran ku hayo oo ku qarannimada u taagan oo qarannimada u maartay dhiig iyo naf iyo dhacaanba ku bixiyey inaad adigana dulmiso oo maasaa aad u gasho waa waxba laga wanaagsan yahay marka waxaan leeyahay ninkaas ha loo duceeyo ummadda islaamka ambeelelba joogtaan annaga waxba ooman qaban karno laakiin waanu ducaynaynaa waanu ka xumaanay markuu meesha uu ka soo hadlayo waan arkay aad iyo aad baan ooga xumaanay bal ila dhagaysta ninka aad aragtaan xabsiga ku jiro bal meeshuu ku jira ilaahay baa kugu dhaariya feeriya waad aragtaan ninka meel uu ku dhibaataysan yahay oo u jeedaan xabsigaas suuligaas ku jiraa oo wuxuu ku daboolay meeshii godkahayd uu iskaga daboolay cawayaanka ka soo baxay uu iskaga daboolay haddaba waa dhibaataysan yahay jirkiisana waa ujeedaan si uu dhibaataysan yahay xaaskiisa waad ujeedaan inay oynayso oo ay leedahay maaragtay anigu asay baan saartay oo ma malaya ninkayga inuu badbaadaya ay leedahay gabadhaana waa iska oynaysaa masaakiinta ah laba qofoodoo lamaana uu kala geeyey laba qofoodoo lamaana uu kala xiray caruurtoodiibuu caruurtiibuu maartay dayac darri ku riday marka waxaan la leeyahay ha loo duceeya ninkaas islaamka ah ee walaalkaanada ah waxaa weeye aad iyo aad buu u dhibaataysan yahay ilaahay waxaanu ka barinay inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu xorriyadiisa dib ugu soo celiyo ilaahay baa awood iska leh Ismaaciil Cumar Geelow wuxuu awood leeyahay malahan allah subxaana wa tacaala waxaanu ka barinay asagaa weyno waaxid ah qahaaru samad ah asagaa awood oo dhan u sugnaatay ninkii aaminaa awoodda ilaahay waxaan u barinay insha allahu tacaala inuu soo celiyo xorriyadiisa qof maartay islaam ah inaad sidaa u gasho wax laga wanaagsan yahay weeyaan wax lagu farxana ma ahan war mu'miniinay ha isdiicina oo ha isdhibaataynina gacantiina waxaad ku geysataan unbaad ku kasbanaysaan gacanihiina waxaad kula imaataan oo ciqaab ku kasbanaysaan ninka miskiinka walaalkaanada ah xorriyadiisa dib ha ilaahay subxaana wa tacaala ugu soo celiyo waanu ducaynaynaa adaga waxba uma qaban karno duco maanu haynaa insha allahu biidni illaahi tacaala waa walaalkii shaakir barnaamijkan hala sheer garayo war qof walba oo walaalkaa gaarsii si ay ugu ducayso walaalkaagaa dhibaataysan ee dhibanaha ah si aan ugu ducayno insha allahu tacaala subscribe-ka noonoo saara waa Somali Action nasoo booqo nana dhiirigeli waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.